بسم الله السلام عليكم كسو دوادا كانالكا برا لغة أكاديمي كنا سو دوادا عشر كيني لحي تبنات برشادة لغة إنجليشكا عشر كينان مانتا وحاو كسابسن يهي و conversation بس كهر انت اينا اقودا قلن عشر كينان فضلا هديات كعصب تهي كانالكا انو سبسكرايب كري سيداسي او كالنا مقال كان سي ميلر وقارو فضلا لاكتا هذا وانو مهم وهنا بقيلين وهقاقي عشر كينان و conversation وودا شيكيسي conversation وودا شيكيسي sida caadada ah wada sheekaysiga wuxuu u dhaxeeyaa laba qofood annagoo usoo kala qaadan doona master A iyo master B su'aasha waxa ku hormaraya master A wuxuu leeyahay what is your nationality waa maxay dhalashadaada what is your nationality waa maxay dhalashadaada master B wuxuu ku jawaabayaa uu leeyahay my nationality dhalashadaydu is waa Soomaali weeyaan my nationality dhalashadaydu is Somalia wa Somalia. Master A su'aasha xigta wuxuu leeyahay are you a student adiga arday miyaad tahay are you a student arday miyaad tahay adiga luqadda Englishka you laba macno ayay leedahay hal qofna waa loo isticmaalaa dad badanna waa loo isticmaalaa laba qof iyo wixii ka badan dad badan waa loo isticmaalaa you dad badanna waa loo isticmaalaa soo marka labadaas macno ayay yeelanaysaa luqadda Englishka you soo marka aad leedahay tusaale ahaan idinka arday miyaad tihiin waxaad leedahay are you students ayaad leedahay are you students ayaad leedahay oo markaas halkan s ayaa raacaysa are you students marka ay dad badan yihiin waay laakiin hal qof markuu yahay are you student weeyaan adiga arday miyaad tahay master B wuu jawaab wuxuu yiri yes ha I am aniga student arday ayaan ahay student waa maxay waa arday Master A where waa halkee where are you student halkee ayaad arday ka tahay Master B ayaa jawaab wuxuu yiri I am student at Baro Luqad Academy I am student aniga arday ayaan ahay at waxaana ka ahay Baro Luqad Academy akademiyada faca weyn ee Baro Luqad Academy ayaan ka ahay Master A ayaa su'aasha qaatay markale wuxuu leeyahay what do you learn maxaad barataa maxaad do you learn aad barataa learn waa barasho what do you learn maxaad barataa Master B I learn waxaan bartaa English ayaan bartaa language luqad I learn English language luqadda Englishka ayaan bartaa ayuu yiri Master A why do you learn English language weydiiyay su'aasha ah why sababtee why sabab do you learn aad u barataa English language luqadda Englishka sabab aad u barataa ii sheeg Master B wuxuu ku jawaabay wuxuu yiri because maxaa yeelay I want anigu waxaan doonayaa because maxaa yeelay I aniga want waxaan rabaa to get si aan u helo a job shaqo sababtaas ayaan u baranayaa I wanted to get a job maxaa yeelay waxaan rabaa si aan u helo shaqo job waa shaqo job waa maxay shaqo weeyaan marka casharkeena intaas ayuu inoogu dhan yahay waxaan idiin sheegayaa mar kale waxaad lagaaga baahan yahay marka aad luqad baranaysid in aad practice baran aad samaysid casharka aad qaadatidna waa inaad in badan practice garaysaa oo aad ku celcelisaa oo aad fahamtaa sidaas oo kale oraah English oo yar oo waxa jirta dhahaysa practice makes you perfect yani ku celcelinta waxay ka dhigtaa qof perfect ah oo waxaas marka uu baranayo ku wanaagsan hadday luqad ahaato haddii maxaan ku yiraahdaa xirfad noqoto anything oo aad baranaysid waxa aad kaga guul gaari kartid waa maxay making more practice inaad samaysid ku celcelin fara badan marka insha Allah ardayhay intaas ayuu casharkeena inoogu dhan yahay intaynu casharkiisa xiga dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh